السلام عليكم ورحمة. sanad ka hor 9 bilood ka hor waxay ahayd xilligii aan ku faafinay kanaalkan muuqaaladii koowaad. maanta iyo mar kale kusoo dhawaada mar labaad kanaalka Maangal oo insha Allah hadduu eebba weyne idmo hadda ka baxdi aad si joogta ugala socon doontaan muuqaalo ku saabsan xisaabta. haddaba maanta waxaan leeyahay 9 bilood ka bacdi maadaama waqtigeedii la joogo maadaama aniga aysan waqti badan iga qaadanin oo aysan qorshe badan iga ramin waxaan go'aansaday inaan dib ugu bilaabo kanaalka muuqaalo taxane ah oo aan ku sharaxayo taxamaadka xisaabta Puntland ee laga qaado ardayda sanadka ugu dambeeyay ee Form 4ka. haddaba anana war kale oo badan inii sii gelin kusoo dhawaada imtixaankii koowaad ee insha Allah hadduu eebid ma sharxi doono wixii tacliiq oo aad imtixaanka aragtaan insha Allah waxaad ku reebaysan commentiga meesha hoose. Okay, haddaba aan bilowno Mathematics Puntland Exam 2021. imtixaanka 2021 xisaabta Puntland baan ku sharaxaynaa waqtiga lagu talagalay sida meesha ku qoran waa 2 saac iyo 10 daqiiqo. halkan waxaa ku qoran some instructions. halkan darajooyinka soo kala qaybsan yihiin qaybta koowaad doorasho iyo labada qaybood dhanba xalina. qaybta koowaad 10 darajo kaliya la siiyay waxa la filayo. halkan hadda markii la saxayo lagu qoray darajooyinka mid kasta inta ka keentay. Okay, haddaba aan bilowno marka. waxaan soo bixi doonaa oo waqana hore u xaliyay. hore kama wada waa hore yani haddaan xaliyay. qaybta koowaad choose the correct answer. waxaad doorataa jawaabta saxda ah. a plus b squared oo lagu daray a minus b squared waa furfur caadi ah xisaabta lagu dhigan jiray ugu hooseeya xisaabta lagu qaato. haddaba caadi wax xalinaynaa waxba ka tagi bayna min bilow ilaa dhamaad baan ka bilaabaynaa. su'aashan waxay ahayd soo xoogaa a plus b meeshaan aad xog lama qabsan marka ayamaha koowaad waa iska dul qaadanaysaan a plus b squared plus a minus b squared inta loo meeqay ugu qaadan doona saadaan fiirsho labadan furfur waxa soo bixi doona laba jeer isku dhufo yani a plus b bracket cusub a plus b kale sidoo kale haddana ku dar a plus a minus b bracket kale a minus b labada group isku darsan no need oo baan xasana saaro a squared plus taa koowaad oo la jibaaray oo lagu daray taa labada loo jibaaray plus b squared plus labada la isku dhuftaa labada la isku dhuftaa hal mar waa soo gaabinaya plus 2ab soo gaabiyay yani afar term bay noqon lahayd afar tibxood laakiin labada tibxood damba isku keenay ab waxay la mid tahay b a sidaa darteed hal mid baa ka soo qaaday tuna oo ku dhuftay furfurdi caadiga taqaanay lagu daraydaa soo qaado lagu daraydaa waa tan dhexe weyn a squared plus b squared bay iyadoo noqonaysaa labadoo plus bay noqonayaan iska fiiri meesha a squared plus b squared inkastoo meeshan uu minus ku jiro haddana u fiirso plus bay noqotay sababtoo ah minus b ku dhufo plus b squared bay noqonaysaa laakiin taa dhexe meesha ay noqotay pluska baatan dambe waxay noqonaysaa minus soo furo soo fiiri 2ab meeshan waxaa kasoo waxay waad aragtaa minus 2ab oh no meel baan khalday meeshii laga rabay anaa dhaho aan tirtiro meeshaas pluskan yar minus baa laga rabaa yani ab midna minus buu taa midna plus buu taa sidaa markay isku dhacaan minus ka soo haraya sidaa darteed afka waa ka sheegaan filayaa waxaas la baxaya plus 2ab minus 2ab waxaa soo haraya meesha a squared bay isleeyihiin isku dar 2a squared plus b squared na b squared bay isku dar 2b squared meesha ugu fududaa gelsanka squared kii waan ka tegay sorry wax kasta iskaga tegaya a squared plus b squared sidaa darteed doorashada aan fiirino waan dhahna waxaa la dooranayaa su-aasha koowaad 2a squared plus 2b squared yani b baa la dooranaya jawaabta b baa la dooranaya jawaabta waxaa la dooranayaa b. su-aasha labaad maxaa noo yaala the sum of the angle a and angle p is right muxuu soconaya isku darida labada xaglood xagasha a la yiraahdo meesha kaaga muuqata xagasha b la yiraahdo waa xagal toosan isku darkoodu waa xagal toosan sidoo doonaan kala yaraadeen laakiin waa xagal toosan sidaa darteed waxaan naqaanaa isku darkooda 180 laga wada hadlo waxaa lagu qaataa fasalada ugu hooseeya so d baa la dooranaya aan qorno wax ka soo qoraynaa si la faylka hadda u baahan hadda aan faafino uu iskaga faafsanaado
haddii cid u baahato ani ayadana b baa la dooranaya jawaabta. No, b miyayna d baa la dooranaya. maxaa khaldan maanta? d baa la dooranaya. d iyo b isku dhawaaq dhigeen sida darteed malaha waxaan umaleynaa d soo yareedo. Anyway, su-aal baa ina kaga tegayaa marka intaana su-aasha dhaafin. waxaan jeclaa su-aashan oo kale gadaal noqoto laakiin maxaa ku soo soo hormartay. waxaan naqaanaa isku darka saddex xagal inay yihiin 180. isku darka xaglaha saddex xagal. su-aashan waa su-aalaha rabaa inaan kaga tago yani qofkii ka shaqeynaya waqti u haya aan dhihin qofkii rabaa inuu ka fekero waqti uma baahna ay feker yar bay baahan tahay. a halka hadaa b qaato xagashana c aan qaato waxaan naqaanaa xagasha a degree ahaan markii loo qoro oo lagu daray xagasha b degree xagasha c cabirka degree wey yani waxa cabir wey wax kale maaha. aanay markasta keenaan 180 degree ay isku buuxiyaan yani xagluhu 180 saddex xagalku noocu doono ha ahaado xagal quman ha yeesho ha kala dheeraado noocu doono ha ahaado magacyada kala duwan uu lahaa 180. haddaba waxaan rabaa inaan naqaano 180 inaa cadaysid su-aashu maaha 180 inaa cadaysid ku socotaa 180 inay xagluhu isku darkoodu yihiin ma cadayn kadib ilaa aad kasoo qaadid in ay tahay xagasha dhammaystiran min halkaa laga bilaabo tusaale ahaan oo kale xagal dhammaystiran inay tahay 360 xagal buuxda goobo buuxda waxaan naqaanaa intaas anay tahay 180 saddex xagalkuna 180 yahay laakiin waxaa ka intaas oo lagu sii daray intaas 180 lagu daray 360 haddaba 180 ma cadayn kadib inuu saddex xagalkan yahay xaglihiisu adoona kasoo qaadin maskaxda ku hayn inay total ku yihiin 360. su-aashan kaa raba waxaa weeye 360 laftigeedana cadaysa kaa rabaa seebay u tahay 360 wareega xagluhu seebay u yihiin xagasha dhammaystiran wareegada seebay u tahay 360. su-aasha kaa raba waa intaas haddaba aan ka socono meesha ku qori kadib baa ku qoraysaa commentiga ama si kale igu soo sheegi kartid. Anyway, su-aashana kugu xigta if the universal set oo calaamadda loo qaatay calaamad zeta miyaa la oran jiray waxaan askara 2 4 6 8 10 12 haddii ay yihiin lixda tiro hadduu ururka guud ka kooban yahay mushkiladda waxaa weeye Soomaaliga ma soo fiirin sida saxda waxayna Soomaaliga soo fiirsho saaxiibada Soomaaliga jecel aniga laftiga waa jeclahay laakiin ay raano degdeg baan ku soo galay. universal set ururka guud waa iska dhacaya erey kale lama filay laakiin ururka guud hadduu yahay uu ka kooban yahay xubnahan elements kan uu ka kooban yahay urur gaar ah haddana lagu siiyay oo la yiraahdo a wuxuuna ka kooban yahay xubnaha la yiraahdo 2 8 2 8 12. haddaba waxaa lagu weydiiyey the complementary of set a meesha waxa ku jira waxa weeye ereyga complementary waxa weeye xag xubnaha ka maqan ururka yar oo a la dhaho laakiin ku jira ururka guud yaa ka maqan waxaa ka maqan laba haysana 8 waa haysan 12 waxaa maqan 4 way maqan tahay 6 way maqan tahay 8 waa haysana way ku jira ururka kale 10 way maqan tahay sidaa darteed waxaa maqan 4 6 10 marka doorashadan la siiyay meel 4 6 10 shay waa adoo sida ka muuqata waa b 4 6 10 baa naga maqan inta kale waa haysana sidaa darteed the complementary of set a waa 4 6 10 aan qorno 4 6 10. okay su-aasha saddexaad complement of set a c baa loo qori karaa ama a prime miyahayd a c baan u qorayaa maanta anugu jawaabtana waxay ahayd 4 6 10 xubnahaas ku kooban yahay. haddaba su-aasha jawaabta aan dooranay waa b doorashada waa jawaabta b sida ka muuqatay meesha. su-aasha ku xigta cabir baa lagu siiyey xaglaha waxaa lagu cabiraa laba wax imaa waxaa lagu cabiraa degree waxaa loo yaqaano ama imaa cabir kala jiro radian sida dhererka lagu cabiro kilometer meter centimeter waxyaabahaas kala duwan xaglaha laba wax kaliya lagu cabiraa inta hadda aqaano degree iyo radian labadaas anagu wax la isticmaalo ma jiraan filaya wax kale saddexaad hadduu jiraan comment ku soo qor garanaysa. haddaba waxaa lagu siiyey xagal ku cabiran radian waxaa raacsan ereyga radian baa raacsan waxaa lagu waxa bedeshaa into degree cabir kale aad u bedel waana meter ku siiyay aan ku yiri dhererkaas meter centimeter igu bedel. okay see lagu bedeli jiray qaacida caadi ah jirtay yani ma sharaxayno say ku timid qaacidada radian degree waxay kala yihiin sharaxaad ilmaad kuma jirto qof form 4 yani ama form 4 u diyaar garoobaya ama form 3 ama form 1 waa sharaxayna casharkan sida darteed u yaqaana degree radian meel kale laga ku sharaxno insha Allah mustaqbalka.
waxaana la siiyey 3/4 by inta waa radian degree u bedel baa yidhi degree markaa u bedelsa waxaan ku dhufan jirnay 180 loo dhigay by haddaba intaa markaa isku dhufatid waxaa soo baxa waa degree waa intaasoo degree loo qoray by baa la boodaysaa halkaan 4 u qaybi waa 1 halkaan 4 u qaybi waa 45 baa soo bixi doonta arki doontaan ay tahay okay ugu dambeyntan waxa weeye jawaabtu labadaas isku dhufo 135 degree calaamadda degree haddaba jawaabtu waxa weeye 135 degree oo ay tahay c jawaabtu waxaa la dooranayaa c su-aashana kuga xigta aan iska fiirsho anaa isku dhufashadaas saxay warqad halkaan aan uga shaqeeyay anyway 135 waa sida hadda soo saaray degdegaan diidaya aan hal mar si fudud ku khaldo okay su-aasha ku xigta waxaan la siiyay xidlo jbaarkaas 63 oo laga jaray xidlo jbaarka 28 doorashada iska fiiri marar badan xisaabta day doorasho tahay wax badan waxaa ka caawinaysa dadaal badan aad samayn lahayd doorashadaas u fiirinaysa sida darteed waxa arkaysaa meesha anay wada root 7 ku jira doorashada sida darteed haddaan ka horan u qorno marka su-aasha 5 anay taan filaya su-aasha 5 waa su-aasha shanaad maxaan la siiyey 63 ku jirta oo laga jaray 28 loo jawaab ku jirta doorashada dhanna waxay u qoran tahay tiro lagu dhuftay root 7 sida darteed root 7 meesha anaa ku rabnaa isku dayna ka hor haddaan tan u qoro marka 9 times 3 oh no I mean 9 times 6 9 times 7 ande 9 times 7 sagaal waxa ku dhacdo waa 63 waxa ma hadda ma samayn yani hal wax ma samayn si kala u qoro bas 28 ka hor haddaan u qoro afar lagu dhuftay 7 wax kala ma samayn waa 28 afar ku dhufo haddaba waxa arkaysaa isku dhufashada qaanuun waxa jira laba tiro isku dhufsan haday qoys ku wada jiraan midba gaar waa u siin karaa sida darteed hadaa gaar tan u siiyo tan gaar u siiyo waxa soo bixi doonta root 9 lagu dhuftay root 7 oo laga jaray root 4 lagu dhuftay root 7 root 9 way ka baxdaa xidid laba jbaarka laba waxa markii la isku dhufto 9 keenaysa waa 3 haddaba waa 7 laga jaray 4 kun ka baxaa waa 2 root 7 koran u baxo haddaba waxaa kala jadhaa 3 root 7aad waxaa ka jadhaa 2 root 7aad iska garanaysaa inay tahay what the hell did I do waa 2 root 7aad aniga dhanba waxba noqday 2 root 7aad kula 3 waxaa ka jadhaa 2 waa 1 root 7aad I don't know maalinka wada cashirka sharaxayo inay tahay miyaa mushkilada keenaysa 1 root 7aad sida darteed halka ma baahnid waxaas kale ka dhawaa root 7 bas jawaabtuna waa root 7 hadda waxa ku jira jawaabta root 7 jawaabta root 7 waxa ku jira a jawaabta root 7 waa a sida darteed jawaabtan dooranayna su-aashaas waa a su-aasha ku xigta doorashada waqti badan qaadanaysa wax kale iska daya computerkan waa culus yahay miyaasna intaa fududee 24x to the 4th loo qaybshay 12x to the 3rd intaa soo fududee tan waxba uma baahna waa su-aasha 6aad okay 24 x to the 4th x ku jibaaran 4 12 x ku jibaaran 3 hal mar meesha 12 u qayb waa 12 u qayb waa 2 halkan 3x baa taala oo la isku dhuftay halkan 4x oo la isku dhuftay taala sidaa darteed saddexdan waxay la tagaysaa 3 kamid halkan sidaa darteed waxa haray meesha x kaliya sidaa darteed hoos oo dhan way dhamaatay hal baa ku soo haray kor maxaa haray 2x haddaba 2x meesha ku taalo way jawaabta saxda 2x waxay ku taalaa c waxaa fiirinaya warqadii ag taalaan ka fiirinaya c bay ku taalaa 2x okay su-aasha toddobaad waa bar chart waxaana la siiyey waxa la yiraahdo statisticska lagu dhigto laguma dhigto yani waa lagu dhigtaa laakiin waa wax lagu muujiyo yani anaa ku dhaw statisticska lagu dhigtaa kaa bajiyo ma baahna yani waa qaab loo qoro xogta loo muujiyo xog baa haysataa computerka ma haysta xog baa haysataa xogta harto ana graph ahaan u muujisid qaababka loo muujiyo marka waxaa kamid ah waxa la yiraahdo bar chart line-ka saa u taagan wuxuu muujinayaa soo noqoshada shayga laga hadlayo inta jeer uu soo noqday dhinacan line-kan saa u taagan wuxuu ka hadlayaa horizontalka shayga laga hadlayo haddaba waxaana la siiyey
gawaarida laga isticmaalo Puntland bar chart-kooda la siiyey meesha waxaa ku qoran Toyota Mark, Toyota Land, Toyota Hawan, Toyota Probox. Haddaba waxaan la weydiiyay the model car in Puntland. gaariga ugu isticmaalka badan model car waa gaariga ugu isticmaalka badan. xisaabta waxaa ku jiray statistics mid mode and median mode baa jiray. Sida eriga halkaas ka yimid model car gaariga ugu isticmaalka badan. Si meesha ka muuqato tan oo baanan waxba dhahno waa gaariga ugu dheer bar chart ugu dheer leh. sababta kan waxaa la isticmaalaa tusaale ahaan Mark wax yar baa la isticmaalaa 200 wax ka hooseeya ama 200 taqriiban. laakiin Probox fiiri 600 siyaad u sii maraya. anyway sidaas waxaan dhahaynaa chat waa D gaariga ugu isticmaalka badan model car waa Toyota. jawaabtu waa D. jawaabtu waa D. su-aasha sideedaad okay su-aashan waxay u baahan tahay muqadimo yar. waxaana la siiyey P maxaa horey ugu qoran P72 miya P7 B92 P92 sababta waxaa jira markii la dhiganayo waxa la yiraahdo permutation iyo combination. permutation iyo combination labaduna waxay ku saabsan yihiin sida aad ashyaa ooga dooran kadho ashyaa badan. intee qaab baa ooga dooran kadhaa shay mucayyana urur guud. tusaale ahaan oo kale intee qaab baa fasal 20 ardaya guddi 4 qof ooga dooran kartaa. qofna qof lama mid aha yani 20 arday fasal ku jira intee qaab baa 4 ooga dooran kartaa. waa qaab aad u tiro badan ina Cabdi iyo Nuur iyo Xaliime iyo Daahir israacisid ma ana Daahir meesha ka saartay Cabdullaahi soo raacisid ma Cabdullaahi meesha ka saartay soo galisid diile kulligood ana ka saarid gabdhakooda dhigtid gabdhaha kulligood ana kooda saarid wiilalkooda dhigtid. waxaa jira salaam kale boqolaal nooc baa jira boqolaal guddi baa dooran kadhaa. haddaba labada qaab aan ku kala sheegay marka la yiraahdo permutation iyo combination labada doorashada ku saabsan maxay kala duwan yihiin. waxay kala duwan yihiin midna waxaa la tixgelinayaa isdabamarinta shayga midna isdabamarinta shayga lama tixgelinayo. guddigaas oo kala fiiri isdabamarin samayn mayso macnaha. salaam waxaa ku yiri Nuur, Daahir, Faadumo iyo Asma. afarta qof guddiya Nuur saasi kala horeeya Nuur, Daahir, Faadumo, Asma. okay ma guddi cusub baa hadaa dhaho Nuur, Asma, Faadumo, Daahir. la guddi cusub maaha. saa darteed tiradii mar raba inay isbedesho inta qaaba ooga dooran karo anuu guddi cusub nooca ugu noqdo mar rabo. saa darteed xisaab waxaa jira daraasaysa inaan la tixgelin isdabamarinta shayga. maanta kale uma baahnina isdabamarinta tixgeliyo laakiin waxaa jira mar u baahanay. tusaale waxaan ku yiri oo kale password baraan mobilka ku xirto. passwordka wuxuu ka kooban yahay 4 lambar. 4ta lambar waxaa ka soo dhex dooran kara 10 lambar aan naqaan 0 ilaa 9. haddaba intee qaab oo dooran kara waa kuma naan qaab. laakiin maanta markii passwordka la joogo hal ana password ku xirto 1 2 3 4 laba mid ana ku xirtay. tusaale ahaan oo kale 1 4 3 2 tirooyinku waa tirooyinkii laakiin isdabamarintoda kala duwan. sidaa darteed marna waxaa u baahan xisaabta markaad daraasaynayo xaaladaha qayb waxaa u baahan inaad muhiimad siiyo isdabamarinta. xaaladaha qaybna uma baahni. labada xisaabood baa kala jirta marka. qaybta combination kala yiraahdo su-aashan kuma jirto. tusaale ahaan oo kale waa qaybta aan lagu muhiimadda la siinayn isdabamarinta. su-aashana ma maanta waa qaybta muhiimadda la siinayo permutation baa la yiraahdaa isdabamarinta. haddaba waxaa la yidhi haddaa 9 wax haysatid oo laba ka dooro lagu yirahdo intee qaab baa uga dooran kartaa. 2 ka dooro. qaacido guud baa halkan ku qoraynaa. haddii lagu siiyo tusaale ahaan kale waxa lagu siiyey n shay waxaa la yidhi waxaa ka doorataa r n maanta 9 bay noo tahay r tuna 2 bay noo tahay. qaacido waxaa jira dhahaysa isdabamarintana tixgeli permutation mar haddii b meesha lagu qoro yani isdabamarinta waa muhiim baa laga wadaa yani su-aasha saasi ku tahay. waxaad dhahaysaa n factorial whatever that means loo qeybshay n minus r factorial. qaacidadaas qaadanaysaa. qaacidadaas ayay ku timid allahu aclam meel kale ku shari doona haddii mustaqbalka ayna la wanaagsanaataan sharaxno laakiin hadda uma soo jeedo. okay see ku raadin karaa marka waxaa dhahaynaa 9 factorial oo loo qeybshay 9 laga jaray 2 factorial. 9 factorial maxaa weeye waa 9 lagu dhuftay 8 lagu dhuftay 7 ilaa laga gaarayo 1. 9 lagu dhuftay 8 lagu dhuftay 7 lagu dhuftay 6 meesha dhigaa
كورا ماشي ده اسكو جوجتو سو جرى هذا أرك دونتي يعني توضع waxay la mid tahay 7 lagu dhuftay 6 lagu dhuftay 5 lagu dhuftay 4 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay hal saddex ayaan ka boodi saddexda 7 factorial iska soo qoray inta wada dhamaystir lahaa sababtan hada arkaysa labada kala jar waa 7 يعني 7 factorial meesha taala hada ka rondo 7 factorial la saar okay good labada soo hadda isku dhufo waa 72 sidaa darteed sagaal shay waxaa laba looga dooran karaa 72 qaab haddii la tixgelinayo weeye isdoomarintooda okay jawaabta waxaan dooranaa haddaba marka waxaan dooranaynaa waa a bay 72 ku taala a 72 ku taala su-aasha sagaalaad infinity time buu qaadan doonaa malay casharkan sharaxaadiis xisaabtan sababta ma dhawin saacadan doorashadana marina su-aashana ku xigta wuxuu doonaa qaato which of the following fraction is equivalent to 0.75 jajabadan meesha ku qoran tee u dhigmata 0.75 caad isku soo wada qaybi ka bacdina kan 0.75 soo baxa fiiri 0.75 tirooyinka lagu siiyey isku soo wada qaybi 0.75 yaa u dhigmata aan waxaa dhigi kadhaa 0.75 waxa weeye 0.25 oo lagu daray 0.25 oo lagu daray 0.25 fiiri waxa halkii oo dhammaystiran ka dhiman 0.25 kaliya anaa kusii daro taamina waxa weeye waxaan haysano waxa weeye halkii oo 4 meelood loo qaybshay saddex ka mid ah saddexaas haysanaa saddexaas 0.75 isku ah taa afraad ma haysano saddexda xisaabtan haysano waxa weeye 3/4 afar meelood markii loo qaybsho halkii meeshan halba ku dhufsano niyada ku haysta yani waxa inta ku dhufan kara x ku dhufan kara laakiin maanta halba niyada ku haysanaa 3/4 halkii afar u qaybi saddex ka mid ah waxa weeye miiraadkii caadiga ahaa laftigiisa qofka ruux buu qaadanaya markii lagu dhaw waxa weeye waa 1/4 tana 3/4 buu qaadanaya waa 3/4 anyway jawaabta marka waxa weeye saddex loo soo afar oo dhiganta yani dhihina oo ku taala doorashada c su-aashana kugu xogta if f of x equals x plus 3 divided by 2x haddii jajabka functionkan lagu siiyey f of x la yidhahdo intaasna uu la mid yahay haddaba meesha x taalo haddaan 3 ku bedelo maxaa soo baxaya halkaa 3 ku bedel waxay noqonaysaa 3 plus 3 6 kor oo dhan 6 baa ka soo baxaysa hoosta meesha x taal 3 ku bedel 6 ku bedel miyaan ku lahaa iska fiiri 3 ku bedel ka wada haddaan ku yiri laala meesha hoostana waxaa ku bedeshaa 3 ku bedel 2 times 3 waa 6 kor oo dhan hoosii kor waxaa ka soo baxaysa 6 taabna waxa weeye waa 6 loo qaybshay 6 oo la mid ah sadarteed jawaab doorashada waa b jawaab aan qorno doorashada su-aasha 10aad waa b su-aasha 10aad doorashada waa b okay qaybta halkaas uga baxana see u qornay qaybta labaad aan qorno qaybta labaad okay qaybta labaad maxay tahay waa ka shaqeyn caadi ayadan way ka fududaa qaybta kale saa usii weyn ma ahan wax qof on 4 anyway commentiana ka dhiban hadda mar kale ka dhiban doona waxaa lagu yidhi 45 loos dhig konton waxaa u qodhaa boqoley qaabada ugu fudud anana istaagan kugu sharxi kara waxa weeye qaabada kala duwan baa niyada ugu qaban kara yani laakiin qaabada ugu fudud waxa weeyaan ku dhaho inta boqol kaliya ku dhufo wixii soo baxana calaamadda percentage raac hadaba su-aashiisa koowaad intaa boqol u qorbaa la 45 loos dhigay konton intaa boqol iska dhufo boqolkiiba boqol calaamadda iska siraaya hadda konton u qayb waa hal konton u qayb waa labo taamana waxa weeye hoos oo dhan hal baa ka soo baxay kor oo dhan 90 taamana waxa weeye waa 90 boqolkiiba anaga socodsi waa 90 boqolkiiba su-aashina kugu xogta su-aasha ku xogta o su-aashan a b c bay kala lahayd su-aasha a bay ahayd qaybteeda a la yiraahdo waxaa noo haray qaybteeda b la yiraahdo waxaa lagu siiyey maxaa lagu siiyey aan ku soo saaro aan warqadii aan ka fiirin log 3 baa lagu siiyey markaas waxa lagu yiri waxa heshaa log 27 log 3 waa macdo aad u siiyey
0.4471 0.4471 su-aasha lagaa dalbaday maxaa weeye hadda log 27 weeye log 27 27 waxaa rabnaa ujeedku waxa weeye hadda aha mar qorbaan kadhow ku sharax 3 to the 3 waxaa rabaa 27 qaabad aan log 27 qaabad aan ugu qori karo log 3 oo wax lagu sameeyey wax lagu dhuftay wax loo qaybshay wax lagu daray ilaa log 3 waa qala laakiin log 27 calculator way baahanta fanforkan calculator ma haysatid marka imtixaan ku jirtay haddaba 27 ki waxa uu qorayaa 3 lagu jibaray 3 3 lagu jibaray 3 waa 27 ki qawaaniinta logga waxaa ka mid ah laba tiro isku jibaaran haddii log lagu horey looga dhashiyo anaa tirada jibaarka horey dhigi kartid maxaan sameeyey anaa tirada jibaarka horey dhigi kartid waa dhigi kartid tirada kor saaran 3 ga horey dhigo kabacdina log 3 ga caadi usoo qoro haddaba su-aashan dhan waxay kusoo arodhay 3 lagu dhuftay log 3 log 3 waa aqaanaa waa 0.4471 3 log 3 waa aqaanaa intuu ahaa ku bedelo nala siiyey 0.4471 intaas kusoo dhufo waxaa kusoo bixi doonta aan fiiriyo 1.3413 jawaabtu waa intaas su-aasha ku xigta simplify and expand and simplify furfur oo kabacdina fududee ugu dambeynta furfur oo fududee waa c halkaan ka fiirinaya minus 2x intaa waxay ku dhufsan tahay 3x cubed minus 4x plus 2 oo kabacdina lagu sii daray 3x minus 1 3x minus 1 intaa waxaa lagu yiri marka koowaad expand kabacdina simplify expand waxaa weeye isku furfur kaliya intaan labadan horey taalla xabadkan tibixan horey taalla waxaa ku fudhaa inta qoys ku jira ha ilaawin anaa maynasyada isku garaacdo tirooyinka caadiga isku garaacdo xuruftana isku garaacdo waxaa ugu badan la waxa weeye tirada minuska okay 2x minus 2x waxaa ku dhufataa 3x cubed minus plus halkan plus waxaa ku qorsoon minus ka soo haray horta 2 waxay ku dhacaysaa 3 ga 6 x cubed ku dhufo x to the 4 bay noqonaysaa 4x halkan minus ku dhacayaa plus buu noqonayaa labada tiro waa 8 labada kalena waa x squared minus plus buu ku dhacayaa waa minus 4x kuwan kalena gadaal caadi ugu raacay 3x 1 okay yaa isle labadana isle wax kale isle ma jiraan kuwan iskuma diri kartid sababta jibaar kala duwan bay wataan total iskuma diri kartid sabab jira awgood qawaaniinta aljabrada saa kule sidaa darteed waa minus 6x to the 4 plus 8x squared labadan fudude midna plus buu taa midna minus sidaa darteed wuu kala jarmaya 3x baa soo haraysa minus 1 jawaabta ugu dambeysana waa intaas no 4 waxaa ka jira 3 ma 3 baa haddana oh my gosh waxbaa khaldan maanta waa 1x 1x waa qori kartaa 1 kana iska maanta muujina meesha booska iska bannaan okay waa intaas khalaas khaladkii waa tiro badan yahay haddaan warqadda fiirin lahayn malaha saasayna kaga tegi lahayn markaas hadhow commenti kusoo qori lahaydeen aljabru khaldaya waxaan u xogay d soo saaro yaan warqadda ka fiirin intaa fududee maaha solve xalli caadi waxaa la qiimaha x ba soo saaraysaa 2x minus 1 3 loo qashay waxaa la mid tahay 2x plus 1 5 loo qashay x qiimada sheeg qiimaha x soo saar waa xujo camal ama query oo kale waxaa weeye marka 2x minus 1 oo loo qashay 3 haddii ay la mid tahay 2x plus 1 loo qashay 5 2x plus 1 way meeshaas 2x plus 1 waxaan af ka leeyahay wax kalaan qoraya loo qashay 5 sorry 2x plus 1 oo loo qashay 5 haddii inta aan kuu sheego qiimaha x soo saar
si aan hooseeyaan iskaga baabiyo dhinacaan 5 ku dhufo dhinacaan 3 ku dhufo hadda dhinacaan koreeyaan 5 ku dhufto hadda kaas uu ku soo booday dhinacaan halkaan wax ku dhuftaa 3 dhinacaan iyo dhinacaan wax ku dhuftaa labada 5 halkaan halka marka 3 ku dhufto 3 gaan wuxuu la baxayaa 3 gaan wax xisaabin mayo 3 ga kaliya baabaya laakiin 3 gaan caadi ugu baxaya dhinacaan markaan laba 5 ku dhuftana dhinacaan wuxuu la baxayaa 5 kan dhinacaan kaliya 5 ku dhacaya sababta meesha dhan waxa soo hartay koreeyaha 5 ku dhufo koreeyaha kalena 3 ku dhufo si isweedaar yani halka 5 ku dhufo waa 10x minus 5 10x minus 5 hooseeyaha uu baabaya marka xaga ku dhufto isweedaarka halkan 3 ku dhufo waa 6x plus 1 inta xali marka wixii x isxoji wixii tira caadi isxoji 10x halka plus bay wataa 6 kaas x ka saddex minus 1 minus 6x waxay la mid tahay 1 kofiyada sixir 5 ka minus bay wataa plus bay noqonaysaa saddex labada soo kala jiro waa 4x nope oh aniga dhan baa waxaa hawada degdeg 3 hadii markaan ku dhufanayay halkaas 3 2 ku dhufan karo waa 6x laakiin 3 1 ku dhufay ilaa sababta 3 kilo kula dhacaysa halka waa 3 sorry iska ka dulqaata 3 okay inta kala jiro waa 4x labadan isku dar waa 8 x waa u baahanahay meel kasta 4 u qaybi imtixaanka marka ku jiro lagu naxariisanaya xisaabta soo dhaxtaa lagu keeni maayo caadi isku qaybsanayaan 8 4 u qaybi x waxa soo baxaysa 2 inaga socodsii su'aasha ku xigta su'aashana ku xigta a total of 250 students came to school 250 arday baa iskool timaada haddii 160 ka mid ay wiilal yihiin waa maxay boqolleyda wiilasha ardada guud su'aash imi aha totalka ardada waa 250 wiilashuna waxa weeye 160 haddaba boqolleyda wiilasha boqolleyda wiilasha waxa weeye tirada wiilasha inta yihiin oo loo qaybshay halka eber baan ka wadaa oo loo qaybshay tirada guud inta boqolley u bedel sida inta boqolley ugu bedelanay boqolkiiba boqol ku dhufo fartida boqol xuma inta boqolkiiba boqol ku dhufo isla soo halka eberka la saar 20 halka 2 qaybi ama 5 u qaybi waa 2 halkan 5 u qaybi waa 5 isla soo fuudee 160 5 u qaybi waa hal 5 u qaybi waxa soo bixi doona ilaa waxa soo baxaya 34 filay 30 iyo 2 filaya 30 iyo 2 shan wax ku dhuftaa 2 watt eberki shan saddex ku dhufo shan 32 haddaba 32 ku dhufo say dhan u baabaa waa 60 iyo 4 wiilashu waa 64 boqolkiiba yani gabdhaha ka dhow yihiin gabdhaha waxa soo haray wallahi kama dhow way ka badan yihiin aad u badan anyway su'aashana kugu xigta su'aasha labaad baa la kala hadda qaybta ka shaqeyn tahay question 2 waxa jira saddex walaalo ah waa cali waa cusmaan waa faadimo saddexdan walaalaha ganacsi bay galayaan waxay ku galayaan $9,000 $15,000 $6,000 waxayna u kala leeyihiin sidii u kala horeeyaan respectively yani 9,000 waxa iskala cali 6,000 cusmaan baa ugu lacag badan lacagta ugu yar waxa maal gashatay faadimo okay business bay maal gashteen waxayna isku waafaqeen faa'iidada anay u qaybsadaan sidii all u kala maal gashteen hadaba lamarkow ay waxa u qodhaa lagu yiri A to B to C lacagtay maal gashteen waxa u qodhaa qaab ratio qaab saami ah u qor as simple as possible waxaana ka dhigtaa qaabada ugu fudud oo la geyn karo okay nagay waa A deeda ya salaam lacagaha maal gashteen si u kala horeeyay u kala hormari asdaan marin warqadan ka fiirinayo aniga waxay kala maal gashteen 9,000 qaab saami oo qor saami markii loo qoray loo qoraa laba dhibcood 5,000 laba dhibcood 6,000 hadda isdaba marisid wax yar xidhan way khaldamayaan asdaba marin waxaa dhihi kartaa marka qaabada akhrinaysa waxa weeye ana akhrisid qaabada akhrisid baa ka saacidaysa inaad fahantid waxa laga wada waxaan tamana waxa weeye
6,000 kasta oo ay Faadumo maal gashatay waxa ku aadan 15,000 oo maal gashtay muxuu ahaa magaciisa oo maal gashtay Cusmaan waxaana ku aadan sidoo kale 9,000 oo Cali maal gashtay adiga waxa yiri as simple as possible sida ugu fudud qor sida darteed hadaa ka roon eberka sida 3 eber la tuur 3 eber la tuur oo waxa dhahdaa 9 15 6 وأصل تبتي حسابتي وأنا سكلا وقري وأنا فوزين تعمل حاوي لح كستو دولار وأي فاضو مال قشتي وحا أقول لك متوكو آدن $1 عثمان مال قشتي سجال وعلف مال قشتي وأسيف فوزين كذا هذا كرونو 3 وقيب الكاس و 2 هل كان 3 وقيب و 5 هل كان 3 وقيب و 3 حاسو هاري ماشي 3 5 2 as simple as possible واسيداس ماشي ugu hooseysa intaas sababta hadda wax u sii qaybsan u wada qaybsan ma jiraan tan waxa weeye laba kasto dollar oo Faadumo maal gashatay waxa ku aadan 5,000 oo $5 oo maal gashatay Cusmaan waxaan sidoo kale ku aadan $3 oo maal gashatay Cali ninka la yiraahdo isku dar totalka waa 10 tamana waxa weeye 10 kasto dollar laba waxa maal gashatay Faadumo 5 Cusmaan 3 waxa gashatay maal gashatay Cali okay I want us double I محل ودي after 1 year they made 2,500 profit واحد سميان هل سنة كبعدي لو كنا شن بقول فايدة هذا بقى علي ما يقول هليا علي ما يقول هليا علي ياري ترى حاجة كم والله سياسة ما قال أفكر أسكت صوتي anyway علي ما يقول هليا علي وحوها قف كواد سادر ساد صدح سوليه waxaan rabaa Cali xisaabtiisa ana shabahan u qoro mar rabaa ana 3 buu leeyahay ana dhaho waxaan rabaa shabahan meeq uu leeyahay toonada dhaho 10 kasta Cali wuxuu ku lahaa 3 sababta totalka intan waa 10 kasta Cali 3 buu ku lahaa haddaba meeq ku yeelan doona waa miiraad caadi dadka miiraadka yaqaanay jajabku qofku lahaa waxa uu dhufransaa tirada guud laga hadlayo 2,500 meeq ku yeelanaya خلاص ka badan fudud halkaas eberka isla saar intaas ku dhufo waa 750 $500 oo dollar inuu heliyo arkisa ana dollar iska wada raacay inuu heliyo arkisa double I triple I saasa loo akhriyaa I don't know how much did Faadumo get Faadumo meeqa helaysaa 2,500 meeqa helaysaa okay Faadumo chipkeedu waxa ahaa 2,10 kasta waxay ku leedahay $2 haddaba inta waxa ku dhufataa lacagta guud laga hadlayo 2,500 eberka la saar 250 ku dhufo $500 بفائدة سنة كاسشة يا كوسو هراي بي بالقلي سو عشرة ما لقى بحي بي بالقلي يبيت عصب calculate the size of an interior angle of a regular hexagon waxa haysataa hexagon regular ya salaam lix geesoole iswada leeg lixdiisa gees bay iswada leegyihiin haddaba waxaa lagu weydiiyey calculate the size of an interior angle xagal ka mid ah hal xagal ka mid ah xagla gudeedka lix geeskaas dhinaciisu isleegyihiin xagal ka mid ah xisaabi si aad mid ka mid ah u xisaabisid waxa sheekan ka dhaanaad qaacidooyinka aad xifdisanayd mid ka mid ah soo saartid waxa kala sameyn ka dhaanaad qaab aad u baahan inaad xifdisanaad isticmaashid كو waxa u baahan tahay kow wadarta aad soo saaratid xaglaha dhan ka badan aad lix u qaybiso sababtoo ah lix xaglood wadarta xaglaha dhan oo soo xisaabsan ku sheegaya waana sidoo kale aad xisaabsatay adiga okay lix gees waa kaas kalarkan bedesho lix gees buu ka kooban yahay ka war hadaa saddex xagal oo kala qaybiyo saddex xagalkaas saddex xagal koowaad saddex xagalka labaad saddex xagalka saddexaad saddex xagalka afraad waxaan qaanaa saddex xagal kasta inuu yahay lix geesoolaha kaliya ma aha intuu gees lahaado saddex xagal oo kala jarjari kartaa waxaan qaanaa marka saddex xagal kasta wadarta xaglihiisu inay tahay 800 iyo 800 ande 180
haddaba afar saddex xagal baa meeshaan taalla totalka meequu noqonayaa haddaba totalka xaglaha xagla gudeedka lix gees wuxuu noqonayaa afar lagu dhuftay 180 intaas isku dhufo waxaa kuu soo bixi doonta totalku meeqa weeye 540 inta waa xaglaha guud adig maxaa lagu weydiiyey xagal ka mida lagu weydiiyey haddaba xagal gooniyo ka mida waxay la mid noqonaysaa 540ka oo loo qeybshay inta xagalood meesha ku taala intaas ku qaybin waa 90 I think 90 ay tahay 6 eber dhufo waa ebertii 6 9 dhufo waa 50 iyo 90 waxaan ugu xoga C kalarka ma keenim ku noqonaa okay C baan ugu xogta find the size of exterior angle of the above pentagon mina C of the above hexagon haduu dhihi lahaa way fanaagsanaan lahay pentagonka sare waxaa xisaabisaa xagal ka mid ah xaglihiisa xagla dibadeedka mid ka mid haddaba waxaan kasoo qaadayna anuu ka wado ama tabteeda u daa meesha above kaliya ka saar of a hexagon of a pentagon of a regular pentagon aan iska dhahno pentagon dhinaciisa is leeyihiin xagla dibadeedka waxaan naqaanaa geesoole mar kasta inay yihiin 360 mar kasta totalkoodu inuu yahay 360 degree xagla gudeedka la mid ah xagla gudeedka is bedelayaan laakiin xagla dibadeedku mar kasta 360 saddex geesku waa sidaas kale afar gees shan gees lix gees todoba gees total xagla dibadeedku waa 360 haddaba hadduu yahay marka regular xagla dibadeedka mid ka mid ah waxay noqonaysaa intuu gees leeyahay 360 loo qaybshay intuu gees leeyahay maanta pentagon baan ka hadlaynaa pentagon isku qaybiladaas 360 boom iskuma qaybsanto calculator ma isticmaalna anyway calculator ma isticmaalna waxaa dhahdaa 360 oo loo qaybshay 5 waxaan aad u filayaa inuu ka rabay inuu dhaho hexagon meesha hadduu hexagon ka waday 6 baa u qaybinaysa laakiin maanta sida qoran 5 baa u qaybinayna wow way u qaybsantaa 72 degree okay inaka saasi su-aasha saddexaad baa la galay question 3 Bashir scored the following marks wuxuu helay dhibcahan wiilka Bashir la yiraahdo 9 7 8 5 12 9 iyo 17 taano inta lagu 17 buu inta ka keenay mid kasta haddaba waxaa lagu yiri waxa haysta the mean of the set data xogtan lagu siiyay waxa soo saaraya celceliskeeda maxaa weeye inta isku dardarto kulligood inta yihiin u qayb haddaba celceliskooda waxa weeye 9 lagu daray 7 lagu daray ilaa ka gaaris meesha ugu dambaysa celceliskooda waxa weeye waa su-aasha A baan la ka weydiiso ma A iyo waa 9 lagu daray 7 lagu daray 8 lagu daray 15 lagu daray 12 lagu daray 9 lagu daray 17 waa intaas celcelis baan la weydiiyay intii inuu qaybay intii yimaado 7 tests baa la yiri waana tirin kale kolo staff shanto intaas ku soo qaybay waa 11 celceliska wiilkaas waa 11 anyway taanka 20 lagu saxay laga yaabo iska runaya bas sir baan ku sheegaya waxa laga yaabaa tartiib u akhrinaya hadda YouTube ka daawanaysid waxa dhihi kada xawaaraha ay dheeraysi 1.5 waa sida aan ku dhageysto mar badan ama 2 1.75 yani hadda dareemsan aad u gaabinayo halkaas ka dheeraysan kartaa hada ikhtiyaarkiisa kale okay soo shaqo find the median of the data set waxa soo heshaa hadaba dhextaalka waxa la oran jiray tirasin badidhaca iyo dhexfurka the median of the data set dhexfurka xogtan soo hel lagu siiyay yani kan markay hagaajisid say u kala waaweyn marka u hagaajisid kan ugu dhaxeeya yaa ugu dhaxeeya kow waana hagaajisa marka koowaad ma hagaagsana yaa ugu yar ka bilow 7 ugu yar yaa ku xoga 8 baa ku xogta 9 baa ku xogta 9 kala ayaduna jirta yaa ku xoga okay 12 baa jirta 15 baa jirta 17 baa ugu dambaysa
doodii la maro kuwaas yaa dhexda ku jira saddex halkaana sagaal baa dhexda ku jirta sidaa darteed b yaa dhex fur noo ah sagaal baa noo ah su-aasha ka xogta what's the mode of the data waa maxay tirada ugu soo noqoshada badan waa maxay badi dhacaha tiradu waa sagaal laba sagaalaad baa ku jiray sidaa darteed tan isweydiin male tiro kale soo noqotay ma jirin sidaa darteed the mode of the data waa sagaal c waa sagaal anyway ka soo siya su-aasha ina kugu xogta waxaa la galay probability waxaa la galay ihtimaalaadka a day is chosen from a week maalin baa waxaa laga doortay isbuuca maalinka waxaa loo doortay anuu ku dhaha buu ilaaway ama ka tegay niyaddu ku haya qofka soo qoray at random waxaa loo doortay qaab cashwaaya maalinka koowaad oo anugu aan maqlo ihtimaalaad iyo probability wax ku saabsan anoo break ka soo baxay maalin form 1 baan ahaa I don't know waxaa lagu dhigi waayey sideedka oo lagu dhiga waagin looma dhigin ama anaan xasuusan waa mid form 4 ahaa aan qaraabanayo waxaan ka maqlay waa maxay probability-ga inuu maalin arbaca ah roob da'o aniga yaa salaam calayk waxaa weeye roobka xilligu daayuu daaya maxaa kuma lihin ikhtiyaar anyway marka maalinkaas ay ugu horeysay probability aan maqlo noocaan usoo ekayd waxaan is leeyahay waa asaasiyaadka qofka tafkiirka bini aadanka ka mid tahay sidaa darteed haddiiba lacala meelo hoos kore lagu dhigo form 1 oo kale iyo halkaas ooma baahna 7 iyo 8 iyo meelaha in la geeyo u baahan tahay sababtoo qofka kama maarmo yani ma sugi karo ilaa form 1 kasoo gaaraya inuu probability barto asaasiyaadka tafkiirka ka mid tahay okay si random loo doortay haddaba maalin baa loo doortay waxaa sheegtaa ihtimaalka maalinkaas inay ka bilaabato s English wax ku barnaa sida darteed waana qaab Ingiriis u soo akhrisaa maalmaha magaceedu anuu magaceedu ka bilaabmado s laba maalmood kaliya magaceedu ka bilaabmadaan s waa Saturday Sunday waa sabti axad annaga waxyaabo kale nooga bilaabaan laakiin English waa meesha ka hadlayna haddaba ihtimaalka inuu ka bilaabmado s waa 7 meelood labo sababta 7 maalmood baa jira labaana ka bilaabmata su-aasha afraad miya maxaa weeye su-aasha waa b maya tiyor maxaan ku qoray su-aasha saddexaad waxay ahayd I waxaan dhan a baa la isku yihahdaa double I triple I b baa hadda la galay haddaba b i-deeda haddana lagu jiraa b i-deeda b i-deeda tan koowaad waxaa weeye 2/7 ihtimaalka inay maalinka iska bilaabmado waa 7 meelood labo double I ihtimaalka maalin labaad inuu ka bilaabmado waxaa lagu diiday maalinka inuu ka bilaabmado ihtimaalka w inuu ka bilaabmado hal maalin baa w ka bilaabmata Ingiriiska waa Wednesday waa arbacada sidaa darteed ihtimaalka in maalinka arbaca ay noqoto w ay ka bilaabmato waa 1/7 su-aasha ugu dambeysa ihtimaalka inuu ka bilaabmado ihtimaalka inuu ka bilaabmado the letter q inuu q ka bilaabmado Ingiriiska marka soo akhrisid maalmaha Ingiriiska soo akhrisid hal xabana kama bilaabmato q sidaa darteed ihtimaalka inuu maalin q ka bilaabmato la doorto qofka uu doortay maalinka uu random ku doortay waa 0 ma dhacayso wax dhacaya maaha okay su-aasha afraad baa la galay hadda su-aasha afraad la galay su-aasha afraad page-kan offer solve this inequality and write its solution set waxaad xalisaa inequality-gan dailigan xali waxaana sheegtaa solution setkeeda jawaabaha macquulka oo dhan tax haddii la taxi karo haddii kalena qaabad kale u sheeg imada sheeg weyn haddaba su-aasha waxaa weeye waa 4a waa qeybteeda a la yiraahdo inequality-gana la siiyey waxaa weeye 4x minus 5 wuxuu ka wen yahay ama leegyahay x plus 4 intaa xali sidii isleeg caadi u xalin jiray waa xalinaysaa wixii xuruufa isku dhinac mari wixii tirooyin caadi isku dhinac mari x tan xagga soo mari oo kala jar yani hal mar baan kala jaray soo fudeeyay 4x waxa ka jira x waxay ka weyntaa intaas halkan plus 4 baa taala kana minus 5 markuu wareego plus buu noqonayaa isku darmanaya 9 buu noqonayaa meel kasta 3 u qayb hadana
x waxay ka weyn tahay ama la eg tahay 3 haddaba intaa waxaa u qodhaa hadda waa xalisay solve baa dhamaystay the solution setkii qor baa lagu yiri marka hadda waxaan tixi karna maaha sababtoo ah x waa wax kastoo la eg ama ka weyn 3 waa bilay waa infinity numbers waa 3 4 5 6 7 8 9 iyo jib ku dhex jiro dhan ilaa infinity laga gaaray sidaa darteed ma qori karno waana qaabad kale u qornay halkan marka laba qaab baa u qori kartaa waqti qayb kale qaabad kale laga yaabo aan u qoriyaan aragtid hadduuna weydiin lahaa on a number line qor aad bay u wanaagsanaan lahay intaa dhahno tusaale halkaas waa 3 halkaa waa 4 halkaa waa 5 inaad dhihi lahayn waa 3 iyo wixii ka dambeeya 3 iyo wixii xag ka weyn pointigan halkan madoobe oo waxa madoobeynta waxay muujinaysaa 3 way ku jira xalka sababta x waxa lagu yiri waxay ka weyn tahay ama la eg tahay sidaas waana madoobeynaa meeshaas waqti siday u qoraan qaabad kale u qori kartaa nooc abstractia waxaa dhihi kartaa jawaabtu waxa weeye waa x kasta waa tiro kasta oo x shardiga ah x inay ka weyn tahay ama la eg tahay 3 waa isla iyadoo soo celin wax kale maana samayn qaab ay u qoraan buwaagta sabiyanada jecleen ay u qoraan ama waxaa arki doontaa ayadoo qaabada loo qorayo x waa tiro kastoo real number so that inay x ka weyn tahay ama la eg tahay 3 anyway ma baahdi waxaan qaabadan ay u qori kartaa ama buwaagta kale HCSK qaabad kale ay u qorto oo muujin karaysa su-aasha ku xigta taa a bay ahayd a ma qornaa waa qornay a b b solve this quadratic equation waxaa xalisaa saableedan x squared plus 5x plus 6 equals 0 saableedan xali x squared plus 5x qaabada loo xaliyo yani say ku timid waxaa sharxi mayo dhowr qaab loo xaliyaa jira iyadoo la isticmaalayo formula minus b plus or minus square root formula dheer ama ana xifdid qaab by completing the square qaabad la oran jiray ama qaabad ah factorize furfur qaabad factorize kana tan kale ugu fudud in lagu xaliyo waxa dhigi kartaa laba tiro markii la isku dhuftay 6 markii la isku darana 5 labada tiro si fudud waa 2 iyo 3 labada plus wata isku dhufo 2 iyo 3 waa 6 isku dar waa 5 sida darteed qaabada waxaa laga yaabaa meel ka timid say u timid waxaan la fahmin anyway waana u laabata xisaabii hore labada tiro ii soo baxday maskaxda hadda kaaga sheegay 2 3 haaba midna ku daray labada ku kala daray waana isku dhuftay hadda waxaa lagu yiri laba tiro hadda isku dhufsan x plus 3 oo lagu dhuftay x plus 2 0 la mid tahay tiro goormay 0 noqotaa laba tiro isku dhuftay goormay 0 noqdaan ama labadooda 0 yihiin ama mid kamid 0 yahay hadda waxaa dhigi karnaa si ay intan 0 u noqoto waxaa shardi ah ama ima aanay tan 0 noqoto ama ima tan kale aanay 0 noqoto ama labadooda 0 noqdaan ka wanaagsan ba tan hadday 0 noqoto macnaheedu waxa weeye taas x minus 3 weeye x 3 ga xagga wareejiyo kaliya hadday qaybtan 0 tahayna tan waxa weeye x waa minus 2 2 xagga wareeji haddaba labada xal haddaa meesha minus 2 ku bedelatid x tala minus 2 ku bedelatid waxaa arki doontaa halkan 0 anay tahay haddaa minus 3 ku bedelatid sidoo kale 0 arki doontaa laba xal bay leedahay marka su-aashana ku xigta c find the volume of the cylinder below waxaa lagu siiyay dhulbo gacankeedu uu yahay 5 dhererkeedu uu yahay 14 waxaa lagu weydiiyay muggeeda simple volume oo dhulbo waxaa naqaanaa base area salka bedka salka goobo wey sida darteed goobo by r square baa naqaanaa tahay oo lagu dhuftay dhererka h aan u bixino by waa naqaanaa 3.141516 askala gacankana waa naqaanaa waa 5 waana isku yartaa dherer height joogana waa naqaanaa waa 14 inta hadda isku soo dhulfatay waxa arki doontaa inay tahay meel baan ku qortay 1099.55 cm cube 1099.55 cm cube okay su-aasha ku xigta find the area of the trapezium below trapeziumka meesha kaaga muuqda koor miyaa la oran jiray koor meesha kaaga muuqda waxaa soo saaraa bedkiisa bedka uu ku fadhiyo dhinaca waa 6
dhinacan oo 4 labada dhinac isku soo horjeedo parallelka muhiimadu inay parallel yihiin labadaas waanay waana isfeersadaan height-kan waxa lagu siiyay maanta joog intuu kor dheer yahay 7 hadda waxa lagu weydiiyay area qaacidadii area-daas waxa xusuusanaysaa trapezium-ka ama si ka wanaagsan hadda markasta soo hadda xataa area-da ilowdid inaad soo derivation kadib soo saara kadib qofka soo u keenay area-dan keenay taad garatay sababta aad bay fududa anyway qaacidada hadda ku sheegaya waa a plus b oo lagu dhuftay h lagu sii dhuftay half tabs usoo qaado a plus b a na waxay ahayd 6 b na 16 14 and there oh is yeah 6 plus 14 h na waxay ahayd meeqa 7 labada isku dar waa 20 half ku dhufo waa 10 times 7 oh waxaan qoraa labada isku dar waa 20 half ku dhufo waa 10 7 ku dhufo 70 centimeter square waa area square baraanaysan okay su'aasha ku xigta waa su'aasha shanaad oo marka waxaan dhamaynayno dhawaan su'aasha shanaad a ladder against a wall waxay ku tiirsan tahay jaranjara waxay ku tiirsan tahay darbi sida sawirka muuqata haddaba waxaa lagu yiri find the height of the wall waxa soo hesha dhererka darbiga h meesha ku qoran tahay soo hel baa lagu yiri haddii lagu siiyay sin 30 inay la mid tahay half sin 30 inay half la mid tahay dhererka darbiga soo hel waxaan naqaanay waxaan la siiyay hadda sawir noocaas oo kale ah halkan 30 baan la siiyay halkan 10 baan la siiyay soo tan ma aywa dhererkan uu di h halkan x baan uu di dib baan ka weydiin doonaa waxaan la siiyay sin 30 inay tahay half h soo hel baa lagu yiri waxaan naqaanaa sin in la mid tahay sin of a theta in la mid tahay opposite-ka xagashaas oo loo qaybshay shakaalka hypotenuse okay maanta xagashi waxaan oo 30 waa sin 30 opposite waxaan oo xagasha waxa ka soo horjeeda h xarafka la yiraahdo shakaalna waxaan oo 10 16 maahan 10 iska anaga h baa u baahana sida meel kasta 10 ku dhufo waxa soo baxaysa 10 lagu dhuftay qoraya 10 lagu dhuftay sin 30 waxay la mid tahay h sin 30 waa naqaanaa half 10 lagu dhuftay half waxay la mid tahay h haddaba ugu dambeynta h waxay la mid tahay labada isku soo dhufo waa 5 haddaba waxay ku cabirnaa muxuu ahaa 10 kaas mitir ku cabirnaa soo 10 mitir bay ahayd 10 mitir bay ku cabirantaa dhererka darbiga waa 10 mitir waa darbi aad u dheer yani su'aasha ku xigtana la weydiiyay oh taa I bay ahayd waa a I-deeda a double I-deeda tana su'aasha ku xigtana la weydiiyay waxaa soo heshaa ka muujiyo find the length of the side marked x waxaan isticmaali karaa darbiga meesha x ay ku calaaman tahay soo saar baa lagu yiri dhererkeeda waxaan lagu ogolyahay inaad isticmaasho oo kaliya only Pythagoras theorem xiriirada Pythagoras baa isticmaali karaa x soo saar qiimaha x soo saar qiimaha x wata darbigan way x away darbigan way waxaan naqaanay qaadada oran jiray Pythagoras markii la joogay c squared equals a squared plus b squared shakaalka loo jibaaray wuxuu la mid yahay labada kale loo jibaaray oo isku wada daray shakaalka maanta waxaa noo 10 shakaalku waa darbiga ugu dheer baa shakaal yiraahdo labada kale waxaa noo h iyo x h waa naqaanaa 5 soo saarna haddaan xisaabino x ma naqaano waa tan la weydiiyay waxay la mid tahay 5 squared plus x squared x barnaana soo saarna sida darteed xagga iga go'dan 10 squared meeshan ahayd 10 square waa 100 5 square waa 25 xagga u soo wareeji minus 25 bay noqonaysaa x square baa intaas labada kala jir waa 25 x square baa inta la mid x kaliya laga rabaa adiga sida darteed x kaliya waxa weeye waa intaan xidid jibaarka laga saaray intaas uga tagi kartaa sida darteed waa sii fudayn kartaa ma sii fudaynba inta uga tag
ama jajab geli haddaad garanaysid si aad ugelisid qof hor kale markaad joogtid intaad ma fududeyn kartid. Okay, maxaa noo xoga su-aasha ka xogta. Sarah buys a goat. gabadha Sarah leedahay waxay ri kusoo iibsatay 9,000 malaa lacagti Kenyaatiga 9,000 ri lagu iibsaday anaga bug Kenyaatiga waa laga soo qoray taankan bay ku iibsatay waxayna iskaga gaday 117,000. haddaba waxa xisaabta faa'iidada xisaabi meeqay faa'iiday kala jar caadi kala jar 9,000 bis kusoo iibsatay 117 damana waxa weey 27 faa'iiday waa BI deeda qorno wax kasta waa qorno waa nagi nire waa isku adkeynay BI deeda faa'iidada heshay waxa weeye lacagtii dib ugu iibisay 117,000 oo laga jaray lacagtii kusoo baxsatay 9,000 kala jar labadaas waxa arki doontaan inay tahay 27,000 oo shilin Kenyaati mala. ay maxaan la weydiiyey find her percentage profit. waxaan la weydiiyey intaas ay heshay boqol ahaan u qor lacagtay faa'iiday soo qabso inta boqol ahaan u qoraysid waxa u qaybisaa lacagtii ay ku soo iibsatay asalkii tan ay iska iibisay ma sababtoo intay faa'iiday boqol ahaan u qoraysaa waana lacagtii asalka u qaybisaa lacagtii asalka maanta waxa 9,000 saddex eber la saar intaas ku qaybi waxaan ku dhuftaa boqolkiiba boqol waa ilaa yani ilaa halka eber la saar halka 9 qayb waa 9 qayb waa 3 waxa ku dhuftaa 10 halkan ku soo haray ebertan waa baxdo taamana waxa weey gabadhan waxay faa'iido heshay waxa weey 30,000 taamana waxa waa laga ganacsan karaa riyaas in soo iibsid waana dadka sida ku shaqeystaan dadka ariga qala hilibka qala neefay soo iibsanayaan faa'iido waxay ka helayaan inay jarjaraan dib u iibiyaan bay faa'iido ka helayaan laga yaabaa 30% ka helaan 20% 50% 10% laga yaabaa ka sii yartaa 5% whatever. su-aasha saddexaad question 3 kan waa part 3 way ma question 3 part 3 halkan ku joojinaa maanta.